Fanaanka Dayax-Dal Nuurshe oo ka mid ah fanaaniinta Soomaalida isla markaana caan ku ah heesaha aadna looga yaqaan caasimadda dalka ee Muqdisho ayaa waxa uu ka badbaaday dil shirqool ah isla markaana ay ugu talagaleen kooxahan heebtooda la garanaynin xilli uu ka soo baxay hotel ku yaala degmada Hodan ee gobolka Banaadir halkaas oo fantasiya aroos ah oo isla markaana bandhig uu ka sameynayay marqura ayuu ka soo baxay hotelka markii uu soo dhameeyay arooska isla markaana heesa dhowr ah uu ka soo qaaday ayaa kooxa saarnaa mooto bajaaj waxay isku horgooyeen gaari oo wata fanaanka Dayax-Dal Nuurshe kaasi oo maalmihii dambe hanjabaad iyo sidoo kale fariimo dhowr ay u soo dhacayeen isla markaana aad u cabsanayay gaariga bajaajka isku horgeysa fanaanka ayaa marqura aad u qalqalay maadaama asiga iyo sidoo kale darawalkii fanaanka la socday iyo sidoo kale wiil kale oo dhar cad isla markaana fanaanka gaariga la saarnaa ayaa marqura waxa isku gooyay bajaajka kuwaas oo ay kasoo degteen rag hubeysan oo bistoolado ku hubeysan inkastoo ciidanka dowladda ay ka agdhawaayeen goobta dhacdadu ay ka dhacaysay maadaama fanaanku aad u qalqalay isla markaana wiilkii halka biskoolad wata ayaa waxa uu sameeyay inuu banaanka u soo baxo durba ciidamada dowladda ayaa goobta ka agdhawaa oo ku soo baxay dhawaqa iyo qaylada Nuurshe ayaa marqura waxa uu ku qeylsho cod dheer markii uu maqlay ciidamada dowladda oo goobta marayay isla markaana ay u istaageen iyo sidoo kale kooxdii dhaca iyo dilka u geysan rabtay fanaanka Dayax-Dal Nuurshe marqurana hotelka uu ka soo baxay iridiisa hore markii la soo dhaafo kaasi oo ku yaalo degmada Hodan ee gobolka Banaadir aad ayuu ugu qeylshay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya qaybta booliska kuwaas oo sheegay inay badbaadiyaan maadaama maalmihii dambe loogu hanjabayay dilal fariimo dhowran ay u soo dhacayeen wiilkan dhalinyarada ee caanka ku ah tagista aroosyada iyo sidoo kale dhalinyarada aadkay u jeceshahay bandhigyada aroosyada isla markaana hotelada waa fanaanka ugu caansan ee marka inta badan loo eego fanaaniinta ku nool caasimadda dalka ee Muqdisho loogu yeerto lamaanayaasha markays aroosayaan kaasi oo heese kala duwan qaado laakiin habeenkii xalaha way ugu duuneed habeenada kale maadaama oo marqura la kulmay dhacdo yaab ku noqotay noloshiisa noqotana dhacdadii ugu horeysay oo marqura la kulma ayaa durba waxay qabteen kooxdii bajaajka saarneed 3 dhalinyaro ayay ahayd sidaan xogta ku helnay isla markaana waxay wateen 2 bistoolad iyo sidoo kale baangad iyo wadihii darawalka ayaa saddexdoodiba waxa qabteen ciidamada booliska oo durba waxa loo waday saldhigga degmada Hodan halka Dayax-Dal Nuurshe ay soo wadeen gaari kamid gaariga ciidanka booliska iyo sidoo kale gaarigiisa oo saaran ayay waxay toos u keeneen gurigiisa oo ka degan yahay caasimadda dalka ee Muqdisho Dayax ayaa waxa uu sheegay in cabsi badan oo hadda dareemayo isla markaana tagista hotelada ee ku noqonayso mid cabsi iyo wajigabax badan oo kala kulmo maadaama fanaankan dhalinyarada ah aad loogu jeclaa aroosyada isla markaana halkaasi uu ka dhacsan jiray bariiskiisa laakiin xalay waxa uu ka badbaaday dil iyo sidoo kale in dhac loo geysto maadaama maalmihii dambe caasimadda dalka ee Muqdisho ay ku soo badanayeen dhaca iyo dilalka marqura ayuu sheegay Dayax-Dal Nuurshe in xalay kooxihii u socdeen ay rabeen ayuu yiri inay naftayda idhaafiyaan isla markaana agabkii aan watay iga qaataan way fiicnaan lahayd ayuu yiri inay kaliya waxaan heystay iga qaataan laakiin taasi oo kaliya uma socon wuxuu aad ugu mahad celiyay ciidanka booliska Soomaaliya kuwaas oo marqura ku guuleysteen qabsashada isla markaana qabteen kooxihii dhaca iyo dilka u geysan rabay fanaanka Dayax-Dal Nuurshe